إكرام تهليل waxay ahayd gabar dhalinyaro ah oo u shaqeynaysa hay'adda nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed waxa la waayay bishii Juun 26keedii xilligaasi ayay Ikram sheegtay in ay aadayso taliyaha nabad sugidda oo howl uga baahnaa tan iyo xilligaasi Ikram war sugan lagama helin waxaana la isla dhaxmarayay warar kala duwan oo ku aadan xaaladda iyo dhacdada lagu waayay Ikram waxay muddo 5 sano ku dhow la shaqeynaysaa hay'adda nabad sugidda qaranka waxaanay muddadaasi qaadatay tababaro iyo waaye aragnimo shaqada sirdoonka ah Ikram waxay tababar ku soo qaadatay dalka Britain waxaanay dib ugu soo laabatay Muqdisho si hawsheeda ay u sii anbaqaato haddaba VOA waxay u dhab gashay inay wax ka ogaato xaaladda Ikram Qaali Maxamuud Guhaad waa hooyada Ikram waxay VOA-da uga warantay xilligii gabadheeda ugu wardambeysay iyo xogtii ay la wadaagtay gabadheeda say uga baxday waa la wacay anigay soo wacday anaa wacay horta fiiday aheeday gabadha waa markasta waa la soconay xaaladeeda waan wacay ayadoo waxaan arkay makeup iyo wax ma marsanayso markaas ay hooy xagee marka video call markaas ay waxay tiri hooyo taliyaha ay wacay saacadaana aan dhahay maxaa dhacay oo doonay kaas ay waxay tiri waa imaana hooyo hadeer taambo yaa ku qaadaya dhalinyaradooda la qaadaysa marka waxaan dhahay maxaa hooyo saacadana bixmay hooyo waa soo dhaqsanayo oo marka meeqa saac ay ahayd markaas ay bixayso 2 saac oo wax dhiman ay ahayd adiga 1 saac iyo 40 amal ay 7:40 meelahaas marka ma dhici kartaa in lagu dagay oo al-shabaab gudaha ku jira ay iyada saas ku shirqooleen ma dhici karto maya ma dhici karto no way waxa waaye qof ay taqaanay raacday gabadha actifaday ahayd qof ay aqoon raacay ma ahayn qof ay codkiisa taqaano oo lambarkiisa ugu jiray raacday gabadha waxa ku dhacay Falastiin bidix iyo midig ayaga uma dhaafto antana waxaan ku maqalnay in meel magaalada kamid ah gabadha ay ku afduuban tahay oo ay ku haayaan hadal ben oo geed loo soo marin waa shabaab shaqul kuma laha ben iyo ku sheeginayna qaali bidix midig gabadhaada uma dhaaftan markay faadiyaasin gabadheeda hadalo hadhiiqo iyo kulanad iyo wixii la halmaalo meesha joogo maqnaanshaha Ikram ayaa ka sokow walaaca ay dadka Muqdisho ku abuurtay waxa kale oo ay saraakiisha dawladda ku dhow aaminsan yihiin in siyaasiyiinta dawladda ka soo horjeeda ay arrinta sii hurinayaan sumcadda dawladana ay ku dhaawacayaan xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo sheegay inuu adeer u yahay Ikram marna xildhibaankeeda ayaa waxa uu ugu baaqay hay'adaha amniga iyo ciddii war ka haysa Ikram in ay la wadaagto horta markuu ugu horeysay hay'adii dadkii mas'uuliyiinteedii aan la kulannay siday anaga ay nooga maqan waxay noo sheegeen siday anaga nooga maqan tahay inay ugu maqan tahay dabcan xanuun badanna ay ku hayso wayna la wadaageen arrintaas iyada laakiin haddana waxaa fiican in si looga hadlo oo la yiraahdo gabadhii noocaasaan malaynaynaa xataa malada xataa wax weyn waa moogta marka aamusnaanta ayaa maamada gabadha dhashay iyo qoyskii gabadha ay kasoo jeedaba ka hadal siinaya waxaan rajaynayaa hay-addii ay ka tirsaneed baaritaanka meeshay u marayso qofkaas meeshay u marayso intaba inay wax ka sheegaan oo ay la wadaagaan qoyska ay la wadaagaan gabadhii way dhimatay way nooshahay midna ma dhihi kari laakiin hadda waxaa la rabaa in muxuu ahay qofaas dadka maqan yahay xanuunkeeda waa dareemi kartaa in muxuu ahay arrintaas iyada aad iyo aad xoogga noola saaro maqnaanshaha Ikram ka sokow in ay ahayd dhacdo ugub ah oo aanan horay uga dhaxdhicin hay'adaha dawladda haddana waxa uu noqday mid mugdi iyo jahawareer abuuray ma ahan oo kaliya in arrintani ay ahayd mid cusub laakiin waxa xaaladda sii murjiyay oo toonka iyo shakigana sii xoojiyay qaabka ay hay'adda sirdoonka u maamushay baaritaanka maqnaanshaha Ikram waxaana ay hay'addu ka dhigtay arrinta mid qaab sir ah u socotay una soo gabagabowday inkastoo baaritaanada socda aysan wada ahayn in warkooda shacabka lala wadaago haddana waxay hay'addu haysatay fursad ay ku jihayn kartay aragtida iyo tuhunka ay dad badani qabaan hadda oo ah in ay hay'addu ka dambayso maqnaanshaha mid kamid ah saraakiisheedii haddaba maxay hay'addu garab martay oo tuhunka iyo walaaca hadda jira meesha ka saari lahaa waxa su'aashaasi weydiiyay Korneel Cabdullaahi Cali Macow oo kamid ah saraakiishii hore ee sirdoonka qaranka Soomaaliyeed hay'adda waxay garab martay isla markii ay gabadhan inay mission ay tahay oo ay maqan tahay la ogaaday inta waalidiinteeda aysan ogaanin iyaga ayaa la rabay inay dhaqdhaqaaqa baaritaanka ay bilaabaan oo maaragtay ay ka bilaabaan weliba guriga ay deganeed iyo ciddii la deganeed iyo qofkii dadkii oo xiriir kala lahaa dadkii ugu dambeeyey oo maaragtay ay wada hadli jireen in maaragtay hay'adda xuuraan iyo maxaa Britain ay bilowdo
yaa saaxiib la ahaa yaa la hadli jiray yaa wici jiray is arki jireen hay-adda marka taas way gabtay ilaa qayladhaanta ay maaragtay ay public ay usoo baxday oo hooyadii ay maaragtay ay qayladhaan afka ku dhufatay oo dadkii oo dhan ay hadleen oo social media ay hadleen marka hay-addii waxa waaye aamusnaanta ay aamustay waxa dhaawac weyn oo soo gaaray maxaa sirdoonka qaranka ayaa maaragtay dhaawac soo gaaray waayo sirdoonka qaranka shaqsi ma laha hebel ma laha waxa waaye qof dhintay hore uga shaqeeyo kuwa noolaa ka shaqayn doono kuwa kale oo maxaa ka shaqeeyo dibadda ka joogaana jiraan laakiin hay-addii waxa waa aamusnaanteedii ayaa waxaa keenay in la iyagaa dileen iyagaa maaragtay afduubay iyagaa sidaan yeelay marka waxa waaye sumcaddaas dhimatay oo maaragtay hay-adda ku dhacday waxa u sababay ay ka gaabisay maxaa baaritaanka inayn maaragtay si firfircooni aysan u galin oo ay maaragtay informationkana dadka aysan la wadaagin inkastoo aysan VOA-du xaqiijin karin haddana waxay ila ka tirsan hay-adaha amniga inoo sheegeen in Ikraam ay u gacan gashay al-shabaab ayna la aadeen dhinaca Doobley ee Kismaayo xigta waxaa kale oo ila wareedyo arrintan looga warbixiyay VOA-da u sheegeen inaysan xaqiijin karin nolosheeda ayna u badan tahay in ay dileen al-shabaab Ikraam ila ku dhow hay-adaha cadaaladda ee dowladda federaalka ayaa VOA-da sidoo kale u sheegay in NISA oo ka jawaabaysa dalabkii maxkamadda ay ahayd in ay ka soo warbixiso halka ay ku sugan tahay Ikraam in hay-addu ay ku wargelisay in warbixin dhammaystiran oo ku aadan sida loo waday iyo sida ay al-shabaab ugu gacan gashay ay u soo gudbin doonaan maalmaha soo socda si aynu u xaqiijino sugnaanshaha xogta aynu ka helnay hay-adaha amniga iyo cadaaladda waxaanu weydiinay Qaali Maxamuud oo ah hooyada Ikraam haddii ay jirto xog ku aadan gabadheeda in al-shabaab ay u gacan gashay in ay la wadaagtay hay-adda NISA maya wax ii imaade mala bikaas waxay noo sheegeen in ay kaala hadleen oo ay warbixin kaa siiyeen xaaladda gabadhaada oy dhaheen wixii beenta maxaa beenahay kuu sheegeen aniga wiilaa ii yimiday wuxuu ii dhahay hooyo gabadhii dhinaca shabaab ay jirtaa meel dhayto baa kala dhahayaa lagu sheegay marka maxaan ku dhahayay meeshaasaa gabadhii joogtaa ama way dilayaan ama kolley inay dilayaan ay u badan tahay wax uun aqliga gelaynin aniga waxaan weydiiyey dadaan dad u diray dad meelihii shabaabku yaqaano wiilal oo maxaan ku dhahay dad qaraabe ah ee kuwada ah waxay dhaheen afkaas xarar dheere ilaa afka Doobley intii u dhaxayso hal meel oo gabadhaas joogto mala website-yadooda iyo raadiyoyaal ay qabaan oo yaryar aynu ku soo sheegeen ay dhaheen gabadhaas ma noola keeni karo mana maxaan ku iraadaayay mana hayna annaga ma arkin waa beentood Soomaali waa isla dhalatay muuqsantahay marka ma ku sharxeen sida ay shabaabka ku aadacday ma ku sharxeen maya aniga waxay gabartayda meeshan intay dabayl soo qaaday shabaab intuu ugu yimiday galayr amal ama dafada la dhigi jiro markaan yareen hilibka dafi jirtay ma u dafinaan dhahay meel oo u imaan karana maaha hadduu meeshaan ka qaadaan dhahay ignaa idinkoo idi dildili lahay mar hore ee waxaasaa iila imaanina shibow dhahay hoos u jees marka wax aqli galaya maahane wax aqli galaya iila imaabaan dhahay shabaab anaka wiilalaa noo jiraan dhahay Soomaali waa istaqaanaan dhahay meesha ku dijeen oo ku qariseen kasoo bixiyaan dhahay waa duugana ama meesha ku haysin oo ku afduuban tahay iyaga soo bixi gaala idin raacanay dambina idin qabee isoo bixi la cunugteedii isoo baxsha war ma qarsoomayaan dhahay markii la qaaday darwal ma wadino aan dhahay gaariga staff ma joogo wax meel si la geeyay dad ma joogo wax dhan waa ognaayaan dhahay laakiin maalinteeda laga hadli doonaa dhahay inkastoo sida ay sheegtay Qaali oo ah Ikraam hooyadeed lagu wargeliyay in gabadheeda ay al-shabaab u gacan gashay haddana ma ahan mid ay ku qanacsan tahay jiritaankeeda waxayna ku tilmaantay mid been ah hay-adda nabad sugidda oo uu hogaamiyay agaasima Fahad Yaasiin oo ay dad badan u arkaan nin awood iyo galaan galba ku leh madaxda dawladda ayaa u muuqda in uu hay-adda ku keenay tuhun kumilanka siyaasadeed iyo sidoo kalena weeraro uga yimaada siyaasiyiinta mucaaradka waana sababta maqnaanshaha Ikraam tahliil ay u tahay mid miisaan iyo hadalhayn ballaaran ku dhaxleh bulshada siyaasadda iyo warbaahintaba sidoo kalena waxay madax xanuun ku noqotay mas'uuliyiinta hay-adda ugu sareysa oo Ikraam ay soo wada shaqeeyeen aadna isugu dhawaayeen sida ay noo xaqiijiyeen mas'uuliyiin dhinaca amniga ah oo ku tilmaamay Ikraam gabar da'yar oo firfircoon shaqadeedana ku wanaagsanayd hay-addana ixtiraam looga hayay dhexdeeda haddii sida ay sheegayaan xogaha sirdoon ee VOA-du ay heshay ee ah in Ikraam ay al-shabaab u gacan gashay qaab sidee ah ayay taasi ku dhici kartaa waxa aan weydiiyey bal in uu qiyaas ka bixiyo Korneyl Cabdullaahi Cali Macow
oo muddo la soo shaqeeyay hay-adda sirdoonka qaranka. waxa waaye qof ay ku kalsoon tahay oo maaragtay marnaba aysan ka filaynin inuu dhibaataynayo ayaa maaragtay arrinkaas oo kaleeto falkaas oo kaleeto u geysan karo qofka maaragtay gabadha u geystay. habeenkii gabadha la waayana waxa waaye waxyaabo badan oo information oo aan ka helay dad aad iyo aad xogogaal u ah oo communicationkeeda ku sameeyay muxuu ahay surveillance ku sameeyay ama tracking ku sameeyay dabagal ku sameeyay waxa ay sheegeen in habeenka gabadha muxuu ahay laga soo qaaday gurigeeda oo in maaragtay signalki oo sheegay telefoonkeeda in maaragtay saddex anteeno in iskaga gudubtay anteenada ku taala muxuu ahay boon dheer kabargarayso kadibna muxuu ahay waaberi kadibna waxa waaye Cabdulcasiis ugu dambeyntiina gabadha meesha laga qaado oo kilometer 0 ah hotelka Doorbin hortiisa ayaa kilometer 0 ah fiyaad meesha ahayd halka ayaa telefoonka lagu damiyay. marka waxa waaye suurtagal ma ahan gabadha in maaragtay ay qofkii ka kaxeeyay gurigeeda ay raacday sida ay u aamintay meesha ugu dhow oo gabadhaasi maaragtay cadow ugu dhiibi kara ama dambiilayaal abaabulan oo kaleeto oo maaragtay u gacan gelin kara ama shabaab ugu dhiibi karo waa waaberi waxa ay tahay waa meel oo gol ah oo ay maaragtay shabaabka aad ay ugu dhuntaan. hay-adda nabad sugidda ayaa waxaa hadda hortaalla 2 arrin oo muhiim u ah kalsoonida lagu qabi karo iyo badqabka saraakiishooda ee mustaqbalka. arrinta kalsoonida oo ah in tuhunka ah inay hay-addu ikraam xirtay ama ay dishay inay caddeeyaan xogtooda ku aadan in al-shabaab ay u gacan gashay isla markaana ay hooyadeed ehelkeeda iyo bulshada kaleba ku qanciyaan xogaha ay hayaan. iyo tan labaad oo ah inay soo helaan dadkii ogaa iyo kuwii fududeeyay in ikraam ay u gacan gasho al-shabaab iyo inay qaadaan tallaabooyin mustaqbalka ah oo ilaalinaya waayo aragooda sirdoonka iyo shaqaalaha kalaba. dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaya inaynu la xiriirno mas-uuliyiinta kala duwan ee dhinaca amniga, garsoorka iyo xukuumadda ayna ka gaabsadeen in ay ka hadlaan arrinka. marka ugu horeysa oo ay noo suura gasho ayaana idinla wadaagi doonaa. guud ahaanna waa naga intaa barnaamijkii bandhiga VOA intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.